waxaa la xiray goobihii ay ka shaqayn jireen. Inta badan shaqaalaha iyo qandaraaslayaashii ayaa howlgab ku soo baxay. Dadka ayaa gabi ahaantood waxa ay bilaabeen inay lugeeyaan toddobaadkii la soo dhaafay si ay u tagaan tuulooyinka ay ka yimaadeen. Dadka qaar ayaa sita alaabtii ay isticmaali jireen ama lagama maarmaanka u ah sida cunnada, biyaha iyo dhar. Carruurtu marka ay ka qayb galayaan socodkaasi aad ayay ugu culus tahay inay waalid ay in badan la jaan qaadaan. Waxaana qaarkood aad arkaysay iyaga oo lagu qaadayo sinta ama dhabarka. Qaar badan oo dadka ka mid ah waxa ay sheegeen in lacagtii ay ka sii dhamaatay iyagoo ku baaqay in macluul ay ku dhow yihiin inay u dhintaan. Qaar ka mid ah warbaahinta kala gedisan gaar ahaan qaybta qoraalka ee dalka Hindiya ayaa wax ka qoray arrimahan dhinaca bini'aadanimada ah ee 22 maalmood ee soo wajahaya dalkaasi Hindiya kadib xayiraadii ay dawladda ku soo rogtay. Wargeyska lagu magacaabo Hindia Express ayaa ciwaan waxa uu ka dhigay Hindiya waa guri socda. qulqulka dadka ayaa waxa la mid ah kii dhacay xilligii ay Hindiya u kala qaybsanayd dhowr qaybood sanadkii 1947 xilligaasi oo qaybo badan sida Pakistan iyo qaybo kale ay ka go'een. Xayiraadii ayaa qayb ka ah sidii looga hortagi lahaa fayraska corona, balse waxa ka dhashay masiibo dhinaca bini'aadanimada ah oo ay shacabku ku adag tahay inay xamilaan. Dadka ay saameysay xayiraadan la soo rogay ayaa waxa ka mid ah haween qaarkood da ah oo ka mid ah mujtamaca dalkaasi. Waxa ay qaarkood ka shaqaysan jireen meheradaha kala gedisan ee magaalooyinka oo ay Delhi ka mid tahay. Qaar waxa ay lugeynayaan masaafo dheer oo u jirta 100 kilomitir ama in ka badan sida caasimadda New Delhi. Isla marka inta ay safarka ku jiraan waxa ay isticmaalaan kaliya waa biyo iyo buskud ama chapatida canjeelada la dubay oo si guud looga isticmaalo gudaha dalkaasi Hindiya. Waxay sidataa haweeneydan ul ay u isticmaalayso socodka si aanay dhulka ugu dhicin. dhowr saacadood marka ay lugeysana waxa ay awood u leedahay inay xogaho yara nasato. dad kale oo wadooyinka lugeynaya waxa ka mid ah wiil yar oo 5 sano jir ah. waxa uu isaguna iyo aabihii oo wehelinaya ay lugeynayaan masaafo 700 kilomitir ah. haweeney ayaa la socota saygeeda iyo gabar 2 sano jir ah oo 2 sano iyo bar. isla markaana waxa boorsada ugu jira cunno, dhar iyo biyo. Siday sheegtay haweeneydan waxay haysataa oo kaliya meel ay tagi karaan laakiin ma haystaan lacag ay cunno ku gataan. Arvind Kejriwal waa gudoomiyaha magaaladaasi waxaana ugu baaqay shaqaalaha in aysan tagin caasimadda isagoo ugu baaqay inay joogaan goobta ay ku sugan yihiin sababta oo ah markay dad badan isugu tagaan goob waxa aad halis ay ugu yihiin in uu ku dhaco fayraska corona ayuu yiri gudoomiyaha. waxaanu sidoo kale u baaqay in dawladdu ay bixinayso kirada guryaha ay dadku degan yihiin isagoo sheegay in la furi doono 568 xarumo loogu talagalay in raashin bisil loogu qaybiyo gaar ahaan deegaanada ku yaala magaalada Delhi. Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Hindiya Narendra Modi ayaa ka hadlay mashaqadan isaga oo raaligelin ka bixiyay xayiraadii ay dawladdu soo rogtay. cabsida haatan haysata dadka ayaa waxa ay sii saameynaysaa dadyowga ku nool gudaha dalkaasi gaar ahaan dadka danyarta ah oo iyagu ka tagaya magaalooyinka waaweyn oo ay ka shaqaysan jireen isla markaana dib ugu laabanaya tuulooyinkii ay markii hore ka soo jeedeen oo ay ka yimaadeen si ay uga hortagaan faafidda caabuqa corona. dalalka dadweynaha ayaa qaaday tallaabo lagu xayirayo xuduudaha taa oo qayb ka ah tacaalka iyo ka hortagga fidista cudurka COVID-19. sidoo kale waxaa xiran garoomada duulimaadyada gudaha iyo dibadaha dalalka iyo goobaha adduunka. wadamada caalamka ayaa si weyn u sii kordhinaya tallaabooyinkaasi looga hortagayo
oo sidoo kale ay ka mid yihiin in dadku ay joogaan guryahooda iyadoo la joojiyey lana xayray dhammaan socdaaladii iyo safarada ay dadku ku bixin jireen gudaha gobolada wadamada ay ka soo jeedaan iyo kuwa caalamka intaba si looga baaqsado ama looga hortago fidista cudurka coronavirus. hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa cudurkan ku sifaysay inuu ku fido isu socodka dadka gebi ahaantiisa. warbaahinta qaranka ayaa gaar ahaan qaybta qoraalka ee telefishinka SNTV dadku ay kala socon karaan kana mid ah goobaha loo mariyo fariimaha wixii talay tusaale ah ama akhbaar cusub oo ku wajahan khatarta dunida ee COVID-19. caafimaadkuna waa muhiim, ka hortaguna waa lama huraan. muwaadin ku dadaal nadaafada guud iyo tangaarka ah. cudurkan waxa uu ku sii fidayaa dalalka caalamka iyadoo ay kiisas horle ay soo baxayaan maalin kasta. taasina waa sababta ay dalalka dunida dagaalka ay ka hortaga ah ugu qaadayaan cudurkan. dadka safraya waa in ay booqdaan website-yada dawladda si ay xog uga helaan macluumaadka iyo sheekooyinka cusub ee cudurka halista ah ee coronavirus. wadamada qaarkood ee joojiyey ama xayiray socdaalka oo aada u tiro badan isla markaana 100 kor u dhaafaya waxaa ka mid ah dalka Djibouti oo 15kii bishii aynu ka soo gudubnay joojiyay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah. dowladda Masar ayaa hakisay duulimaadyada marka laga reebo kuwa bini'aadanimada, dib u soo celinta iyo kuwa hay'adaha qaramada midoobay oo iyagu amar ka haysta qaybta duulimaadka ee dowladda Masar. duulimaadyada caalamiga ah ee Canada ayaa iyaguna la joojiyay 18kii bishii Maarso. duulimaadyada gudaha ee ka imaanaya sida Caribbeanka, Saint Pierre, Mexico iyo Mareykanka ayaa iyaguna xayiraadaha loo qafiifiyay. 26kii bishii aynu ka soo gudubnay Shiinaha ayaa ku dhawaaqay si ku meel gaar ah inuu u xayiray oo aan la geli karin oo arintan ay wajahayaan ajaanibta marka laga reebo shaqaalaha diblomaasiyadda ka shaqeeya dadaal loogu jiro si looga hortago kiisaska dibadda looga soo musaafuriyo ee coronavirus sida ay Shiinuhu warisay. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in dadka ajnabiga ah ee haysta ruqsadda deganaanshiyaha iyagoo loo diidi doono in ay galaan soo bilaabatay 28kii bishii March aynu ka soo gudubnay. muwaadiniinta wadamada adduunka ka imaanaya ee kala gedisan ee tagaya Shiinaha ee u tagaya arrimaha dhinaca dhaqaalaha lagama maarmaanka ah, ganacsiga, teknolojiyadda iyo culumta sayniska iyo arrimaha kale ee lagama maarmaanka u ah howlaha bini'aadanimada ee degdega ah ayaa iyaguna ay tahay in ay dalku galka weydiistaan. bishii Janaayo Shiinuhu waxa uu kordhiyay dhowr tallaabo oo lagula tacaalayo kiisaska dadka qaba ee dibadaha ka imaanaya iyadoo ay xukuumadda Beijing iyo qaar ka mid ah gobolada dalalka caalamku ay dalbanayaan ama culays ay saarayaan si duulimaadka caalamiga ah uu u galo gudaha dalkaasi Shiinaha xilli 14 maalmood la sii karantiilay. dadkaasina waxa ay mari doonaan karantiil muddo 14 maalmood ah. dalka Itoobiya ayaa dabayaaqadkii bishii aynu ka soo gudubnay waxay dowladdiisu ku dhawaaqday in ay duulimaadka diyuuradda Itoobiya ay joojin doonto taa oo ku xadidan 30 dal. Finland ayaa rakaabkeedu waxaan loo ogolaan doonin inay galaan rakaabka duulimaadyadu dalkaasi Finland marka laga reebo muwaadiniinta dalkaasi kuwa haysta dhalashooyinka wadamada Yurub iyo rakaabka kale ee haysta ama leh ruqsadda deganaanshiyaha ay soo saarto dowladda Finland. tallaabooyinkan xagga xaaladaha ma saameyn doonaan dalalka kale ee qaaradda Yurub ka tirsan kuwaasi oo ay ka mid yihiin dadka ay qoysaskoodu ka joogaan iyo kuwa leh baasaboorada dalka Britain. xubnaha kale ee qoysaska waxaa ka mid ah
kuwa ka soo laabanaya ee maraya dhab ahaan u maraya dalkaasi Finland si ay dib ugu laabtaan dalalkii ay marka hore ka yimaadeen. Shaqaalaha gargaarka, kuwa gaadiidka ka shaqeeya, diblomaasiyiinta iyo kiisas kale ee lagama maarmaanka ah ee xaaladaha shaqooyinka ayaa iyaguna loo qafiifiyay xayiraada laga qaaday ee xagga socdaalka ee dowladda Finland soo rogtay. Wadamada kale waxaa ka mid ah Faransiiska, Gabon, Talyaaniga iyo dhowr dal oo ay sidoo kale ka mid yihiin Kenya oo iyaduna gabi ahaanba xayirtay duulimaadka caalamiga ah. Malaysia waa ay joojisay cid muwaadiniinteeda ahayn inay galaan gudaha dalkaasi. muddo 14 maalmood ah ayaa xitaa muwaadiniinta dalkaasi haddii ay dib ugu laabanayaan dalkooda hooyo lagu karantiili doonaa goobta ay diyaaraddu caga dhigato ee garoonka. Norway iyo Qatar iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya, Koonfur Afrika, Soomaaliya oo iyaduna gabay ahaanba joojisay duulimaadka caalamiga ah. wadamada kale ee joojiyay xayiraadaha soo rogay ee saameynta kule Soomaaliya waxaa ka mid ah ama soo hodinta ama qaarad ahaan lala wadaaga sida Zambia, Zimbabwe, Belgiumka oo ah xarunta midowga Yurub iyaduna gabi ahaanba waa ay joojisay. Yemen ayaa sidoo kale ka mid ah dalalka xayiraadaha soo rogay. guud ahaan intaas ayaan ku soo afjarayaa barnaamijkii socdaalka dunida ee qaybta toddobaadkan. intaynu barnaamijkan mid la mid ah dib ugu kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. وهاجاك داود waxaan filayaa barnaamijkii socdaalka anoo Yaaqub halkan idinka soo tabanayay Ustaad Maxamed Nuur Macallim Johannes usna inoo soo tarjumay gacan weyn uga sii dhinaca kaamira Ustaad Saciid Suryako iyo Sakriye Maxamed waxay noo tifaftiray Ustaad Muuse oo dhanka farsamada gacan weyn iga siiyo. aad baan idinka mahadcelinayaa goobta galneed oo fadhideen inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono maxaan idinkaga tagay sida iyo amaan Allah iyo kulanti dambe oo xiiso leh daawadayaal.